السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي isku soo noqdo wanaagsan maanta waxa videogan waxaan ugu talagalay update-kii qisadii ku saabsaneyd Gabby iyo Brian videogani sheekadooda kama wada sheekeynayo haddii aad doonaysid inaad si fiican u fahantid qisadan videoga xagga hoose baan idin soo dhigi doonaa insha Allah saad u fahantid maaragtay waxay wax u dhaceen laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa wararkii ugu dambeysay ee ku saabsanaa dhimashadii Brian wataan videogii ugu dambeysay idin sheegayay in Brian lafihiisa la helay oo hadda la og yahay inuu dhintay dadka expert-ka ah waxa ay ku tala jiraan sida ay u cadeyn lahaayeen qaabka uu dhintay miyuu dilay miyaa la dilay ma si maaragtay accident ah buu dhintay ma natural ahaan maaragtay oo dee isagoo dar ilaah iska dhintay oo kale bay ka wadaan wayna kala cadeeyaan oo la sheego qaabka uu dhintay familigiisana waxay yiraahdeen ma aasayno oo maaragtay qofka markuu dhinto waata ay xaflad iyo adhoona waxba u sameeyaan waxa looma sameeyay bay yiraahdeen hadhowto lafihiisa marka ay lagu soo wareejiyo waalidkii waxay yiraahdeen Brian hooyadii aabihii dhalay waxay yiraahdeen way gubayaan lafaha dambas bay ka dhigayaan marka taas waxay ku tusaysaa waxay og yihiin familiga in iyo aad maartay iyaga horta waa la neceb yahay sida xagga media-ga waa laga neceb yahay waayo iyagu may hadlin may caawin familiga Gabby hooyadeed iyo aabaheed may caawin aad baa maartay ilaa hadda looga shakisan yahay ta kale aan doonayay anigu aan maartay aan ka hadlo oo la yaab leh wax weeyaan lafaha iyo alaabtii Brian uu lahaa waxa helay aabihii sababta aabihii uu helana waxa weeyaan markii ay FBI iyo police-ku ay muddo doonayeen ilaa bil ah ay waayeen oo meelo badan ay ka baadheen lacag fara badan ka baxday waxa ay codsadeen Brian hooyadii aabihii in ayaguna ka qayb qaataan baaritaanka inankooda waalidkii marka hore baba ku yiri wiilkaygu wuxuu nagu yiri dhinacaas uu tagayaa meelaha ka baadha marka meelahaas ay ka badbaadayeen meelo park weyn oo biyo badan maartay ku jiraan oo yaxaas ka buuxo meelahaas bay FBI ay muddo badan badbaadisay laakiin waxba markay waayeen waa markay ka codsanayaan aabihii iyo hooyadii ay leeyihiin please idinka wiilkeena yaqaana idinka garan kara meesha uu tagayo oo kale inuu nool yahay iyo inuu dhintay baan doonaynaa inaan kala ogaano marka 20kii October isla markiiba waalidkii markuu uu bilaabay iyaguna maartay inay booliiska iyagu la socda ay baareen meesha uu ku dambeeyay Brian isla markiiba aabihii baa wuxuu helay shandad iyo alaab iyo Brian leeyahay markii dambena wuxuu helay lafihiisii wiilkii uu dhalay ee Brian lafihiisii aabihii baa helay ka waran booliisku ma arkeen marka taas horta la yaaba sidii shaki ba maartay dad badan soo galay oo yiri talo masagaaba lafaha sidee oo meesha keenay booliisku marka I don't know waxa ay maartay shaqadoodu si fiican uma sameyn anigu marka dadteeda markaan dhibto waayo waxay ahayd inuu booliisku uu meel kasta uu barbar taagan yahay waxa la yiri aabaha markuu lafaha helay booliis agtiisa mu joogin midba dhinac buu u dhaqaaqay marka taas waa laga shakisan yahay waayo in badan ba horta familiga laga shakisanaa familigu ma caawin booliiska inta badan isla markiiba lawyer bay qabsadeen marka wax kasta oo ay doonayaan marka la ogaado lawyerka ka jawaabayay intii Brian iyo Gabby markiiba la doonayay meedad badan baa la helay horta arintani waxyaabo badan maartay bay soo dibad u soo saartay oo dad fara badan oo qaar isdileen qaar la waayay baa meedkooda la helay faamiyo badan baa maartay ku farxay in meedkoodii maartay qofkii ay waayeen ay laayeen meedkooda maartay loo keenay marka waxa la yiri ilaa 10 qof meed ah oo la waayay marka ama inay noolaan inay intaan la kala ogeyn baa la helay marka FBI-du meedad kale heleen laakiin kay doonayay ma helin inanka lafihiisina waxa helay aabihii marka taas waxa weeyaan very suspicious waa wax maaragtay laga shakisan yahay weeyaan waayo anigu waxa isleeyahay talo mar horaaba intuu dhintay ay guriga ku dileen meedkiisa hadhowto markuu lafa noqday keeneen oo meesha keeneen I don't know anigu maartay chance leeyahay hadda waa la baarayaa lafihiisa la baarayaa waxaana la doonayaa in dadka expert-ka ah ee kala sheega qofku sidoo u dhintay qaabku u dhintay marka waxa la doonayaa in la baaro oo muddana way qaadanaysaa baa la yiri in la kala cadeeyo
inuu suicide ahayd oo isagu isdilay oo nafta isagu iska qaaday hadda for example hadduu isagu uu maartay nafta iska qaaday sida ugu dhaqsada badan ee lagu fahmi karo wax weeyaan haddii xabad maartay ay madaxa maartay ay lafaha maartay madaxa ay dalool leedahay oo kale oo meelaha maartay qofku markuu isdilayo usually maartay dhagaha xag ka sareysa buu qofku ku beegayaa ama afka buu maartay xabad iska gelinaya marka qaabab badan baa jirta oo qofka lagu ogaado maartay inuu isagu isdilay in kale taasoo kale baa cadeyn karta inuu isagu isdilay ta kale oo cadeyn karta maadaama ay de lafa qurahayaan hadda wax kale ma hayaan wax weeyaan inuu qaatay oo kale sun oo kale inuu qaatay oo hadhowtan waxa laga ogaan karaa jirkiisa dheecaan maaragtay duuli leeyahay lafaha oo kale hadda dheecaan bay qaar dheecaan baa ku jira dheecaankaasaa la baarayaa oo waxa laga baari karaa dee sun inay ku jirto marka dawooyinka nooc maaragtay baa jira hadduu dawo badan qaatay oo kale marka anigu just example maaragtay wax weeyaan baan intusayaa sida ay ku cadeyn karaan in qofka la dilay ama uu isagu isdilay ama uu qofku uu xanuun u dhintay oo kale hadii ma suurtagal ma aha anigu way wuxuu ahaa 30 jir oo fit buu ahaa marka xanuun inuu iska dhinto isagoo ordaya maybe way suurtagal kartaa laakiin de say iyagu sheegayaan waa inay kala cadeeyaan ma natural buu dhintay ma homicide waxweeyaan in ma la dilay ma qof baa dilay ma qof baa ka dambeeya qofka maartay de sida hadda Gabi oo kale dhimashadeeda waxa loo geliyay liisada inay homicide tahay homicide means wax weeyaan qof baa dilay it's a murder waa wax weeyaan qof baa u geystay dhimashadeeda maartay ka dambeeyay dhimashadeeda isaga marka laakiin dhimashadiisa hadda lama cadeyn karo sababta isagana la isleeyahay on loo heli waayay markii hore meedkiisa lafihiisa wax weeyaan meeshu marka laga helay isaga biyo badan baa marka ku jiray meesha meedkiisana waxa laga helay meel biyo qoyan oo maartay biyo badan ay leeyihiin iyo xas badan baa ku jira meesha marka waxa la isleeyahay xilliga waliba oo isagu meesha de marka la isleeyahay wuu tagay weatherka maartay hawadu aad iyo aad u kulayd waxa la isleeyahay kulaylkii iyo biyihii markiiba jirkii wuxuu noqday inuu qurmo uu baaba oo de jirkiisu maartay ay lafa quro ka soo haraan jirkiisii waayo hadda de lafihiisa waxa lagu cadeeyay ilkihiisa la soo ogaaday waayo qofka maartay markuu dhinto uu lafa noqdo inta badan qofkii hore inuu yahay de qofka maartay la yahay in si loo cadeeyo qofka dantiis markuu tago waxa laga qaadaya sawir qof kastana ilkaha gaar ba maartay sida DNA oo kale ama faraha maartay qofka waa dadkii faraha laga qaaday oo kale qof kasta gaar bay maartay u yihiin ilkaha oo kale maartay marka ilkihiisi iyo ilkihii isaga laga hayay oo dentiskiisi baa la isu keenay saasaan lagu cadeeyay inuu Brian ahaa marka waa la yaabay waxa la yiri sidii markiiba de ay jirkiisu maartay lafa u noqdaan sababtaas keenaysa waxa la yiri biyo ku hoos jiray meeshana way kululeyd marka waxa la yiri sababtaas markiiba keentay inuu markiiba uu dheecaankii jirkiisii oo dhan baabao waxana la isleeyahay ama de bahalo kale oo meesha ku jira baa cunay jirkiisii oo marka taas waa uu markiiba lafa u noqday waxyaabaha kale ee la soo ogaaday intii uu Brian maartay uu de la waayay waxa ahayd wuxuu isticmaalayay Gabi card ay lahayd taas maartay waa information hadan ku dhex darayo oo de la soo ogaaday marka taas waxay ku tusaysaa inuu isagu qoro ogaa in gabadhu ay dhimatay sagana boqolkiiba de loo haystaa inuu gabadha dilay laakiin maadaama hadda sagana dhintay waxay noqotay arrin maartay de xaga ku soo xirantay waayo waligii yaalihii maartay de lama ogaanayo sababta uu dilay waxyaabihii ugu dambeysay ay de isku dagaaleen ama ay sababtay inay islaayaan saguna sidoo ku dhintay ma qof baa dilay ma saga isdilay ma darilah buu dhintay oo de by accident oo kale buu ama u dhintay waxyaabo badan ba hadda maartay de aan laga jawaabi karin oo la sugayaa marka case-kan wuu soo xidhmay haddana wali wuu furan yahay case-kan inkastoo hadda de uu ku soo xidhmay dhimashadii Brian haddana wuu furan yahay waayo de lama cadeyn qaabka uu dhintay maxkamadda lama geyn karo hadda qofna qolabada qof hadda dhintay qofna la maxkamad lama geyn karo dad badan baa marka hadda aaminsan in labadoodaba la dilay taasi I don't know inay suurtagal tahay oo la isleeyahay oo qof baa iyadana dilay isagana uu cararayay isagana waa la dilay marka taasi de qofku inuu soo cadeeyo whoever believes that maartay dad badan baan arkay online oo sheegayo leeyahay no waalidka macaan laga shakisan yahay armay isagana dileen iyadana dileen marka I don't know waxyaabo badan baa maartay wareegaya
anigu intii hadda aan idila qaybsaday waa intii ugu dambeysay aan wararka meelaha maaragtay dee newska aan ka dhageystay intaas maarta aan doonayay idila wadaago marka sheekadaas halkaas ku soo dhamaatay dee wixii hadda soo kordha hadii la soo sheego qaabka uu u dhintay ay cadeeyaan ay lafihiisa ay ka baadhaan maartay dee inay ama sun isku dilay ama istoogtay ama si kale ku dhintay hadii wixii la soo sheego insha Allah in the future waan idila soo socodsiin doonaa team qiso marka waxaan leeyahay asxaabta waan soo dadaalay iga raal noqda waan busy baan ahaa laba cishay igu qaadatay inaan maartay video soo duubo laakiin insha Allah wixii soo kordhana waan idila soo socodsiin doonaa marka asxaabta halkaas aan ku dhameynaya videoga insha Allah waxaan rajeynayaa in maartay inagoo nabad qaban isku soo noqono say nabad geliyo asxaabta assalaamu calaykum